xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle deegaan doorashaduna ay tahay degmada Balcad oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa degmada ayaa kulamo waxa ay la qaateen mas'uuliyiinta maamulka degmada Balcad iyo ururada bulshada rayidka ee degmadaasi kulankan oo u dhaxeeyay xildhibaanada mas'uuliyiinta degmada iyo ururada bulshada rayidka ayaa waxa looga hadlay waxyaabaha ay bulshadu ay doonayaan in wax loogu qabto sidoo kale waxa warbixin looga dhageystay maamulka degmada Balcad xildhibaanadan oo ay weheliyaan mas'uuliyiinta maamulka degmada ayaa waxa ay kormeereen mashaariicyo laga fuliyay degmada sida isbitaalka degmada iyo iskuulka degmadaasi waxayna sidoo kale ay booqdeen xarumaha laamaha amniga oo ay kamid ahaayeen saldhigga booliska degmada Balcad oo burbur xoogan uu ka muuqday iyo xarunta nabad sugidda ee degmadaasi marka uu kulanka soo idlaaday kadib ayaa warbaahinta waxa la hadlay mudanaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ee deegaan doorashadu ay tahay degmada Balcad xaqiiqo waxaan u maleynaa war badan igama furna waayo maanta waxaa joogo xildhibaanadii deegaanka u dhaartay xaqiiqo bulshada Balcad iyo maamulkoodaba waxaan markhaati kacaynaa inay dad nabadda jecel yihiin waxbarashadii wax ka qabteen caafimaadkii wax ka qabteen isboortigii iyo ay wax ka qabteen jidadkii wax ka qabteen haddana gacan kale ma laha ونصيب درة إنتاس بعد السلام مانتي وحان ربنا إن شاء الله تعالى إنا سوق قبينو سعدالكي وكور قلد أهاي يدق مدى بلعد أن كجوغني دور كمال منصور دافني وحان آدي آدو مهد علينا الناس ودوينتي وناك سنيدي بلشدر هاي بلعد إيو مامول كبا سيدا إنو سو دويين سيدا نلو شقايين هوليها أن أصعني sida inoogu fududeeyeen waxaan idin leenahay ajir Allah idinka siiyo hawsha meesha ay hadda taagantaa ka sii wada waxaan kaloo rabaa in halkan baaq ugu diro madaxweynaha Hirshabelle madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle wasiirka amniga Hirshabelle taliyaha booliiska Hirshabelle waxaan leeyahay mas'uuliyiinta dalkan iyo dadkan idinka noo ah annaguna waxaan nahay garbihiini waxaan idinka codsanaynaa degmada Balcad waxyaabaha aan ku rugalno waxa ugu badan waxay ahayd amniga waxaan codsanaynaa waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahad celinaynaa bulshada reer Balcad oo aad iyo aad sida qiimaha badan loo soo dhaweysay waxyaabihii ay tabanayeen ay kamid tahay in isbitaalkii degmadani dhismihiisa la dhameystiray oo san lahayn wax shaqaale ah cid ka caawisana aysan jirin ayadana waa qaadanay xildhibaanadayna qaadanay baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waday dadaalo ku aadan kormeeridda mashaariicda laga fuliyay deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe